Sabataay Taariikhdiisiiii waxa uu sanadkii 1626 ku dhashay magaalada Asmir ee ku taala wadanka Turkiga. Aabihii iyo hooyadiiba waxa ay ka mid ahaayeen Yuhuudi ka soo qaxday Spain kadib markii sida xun loo gumaaday ayna Kiristaankii halkaas deganaa dhulkoodii ka soo saareen, waxaana si fiican u soo dhaweysay dawladii Cusmaaniyiinta. Sabataay waxa uu la dhashay 3 carruur ah, isaga ayaana ugu yaraa. Aabihiina waxa uu ahaa taajir. sababta aynu ninkan uga waramayno ayaa waxa ay tahay in uu isagu ahaa ninkii aasaasay kooxdan loo yaqaano Dawnamadah oo sidoo kalena ku caana magac kale oo ah Sabaatiyiin. waxa kale oo uu bidigay sharciga, axkaamta iyo dhammaan nidaamka firqadan. yaraantiisii ganacsiga aabihii muu xiisayn jirin, waxana uu mashquul ku ahaa barashada diinta. waxa uu noqday saahid u go'ay cibaado, waxana uu u samayn jiray cibaadada qaab cusub oo aan ahayn kii diintoodu dhigaysay kana duwan. waxa kale oo uu bedeli jiray had iyo goor kitaabka Yuhuudda. isagoo 19 jir ah ayuu noqday nin dadkii uu la noolaa xushmad iyo ixtiraam ka mudan. waxa uu ahaa nin baraarugsan oo si dhow u fahamsan waaqica, sidoo kalena markasta kaskiisa ku haya dalanbaabigii, barakicii iyo dhibtii ay qoyskiisu soo mareen. guud ahaanna si weyn ula socda xaaladda cakiran ee ay Yuhuuddu waqtigaas ku noolayd. 28 jir markii uu ahaa ayuu guursaday gabadhiisii koobaad, taaban oo umu dhawaan, isagoo uga gol lahaa in ay ardaydiisu u aragto inuu yahay wadaad fadli badan si ay hodhowtoole si fudud ugu rumeeyaan. xagga dumarka uu ku ibtilaysnaa oo waxba uu gogol dhaaf la sameeyay sida la sheego aaska saaxiibkiisii uu Masar ku lahaa. qarnigii 17aad waxa uu Yuhuudda u ahaa xilli ay oohintoodu ay Yurub ka baxaysay, halkaas oo si xun loola dhaqmi jiray loona bahdili jiray. xaaladuna aad ayay ugu adkaatay. murugadii badneed ee haysatay awgeed waxa ay kol kasta ku ducaysan jireen in uu u soo baxo masiixii ay sugayeen, waxaana dareenkaasi uu dhaliyay in koox Yuhuudda ka mid ahi ay sheegeen inuu masiixu soo baxayo sanada 1666. si weyn ayay dabadeedna Yuhuuddi ugu dhex faaftay arrintaasi oo ay isugu bishaareeyeen. Sabataay oo ahaa nin damaaci badan aadna u caqli badnaa, waxa uu ka fekeray sidii uu u noqon lahaa masiixa la sugayo. ninkani aad ayuu u yaqaanay diintooda, waxa uu ahaa afmishaar xariif ku ah qancinta iyo jihaynta dadka. durtaba waxa uu galay inuu u diyaar garoobo sanadka la wada sugayo ee 1666. si joogto ah ayaa uu u dahaaro qaadan jiray, maalin kastana waa uu soomi jiray. doodo badan oo ka hor yimina si cajiib leh oo dadka soo jiidatay ayaa uu uga baxsaday oo uga muruxsaday. waxa uu sameeyay qasiidooyin isku ammaanayo oo Yuhuudi ku dhex baahay, kuwaas oo qayb ka noqday in ay dadku ixtiraamaan, caadna uu ku noqday. sanadkii 1648 ayuu Sabataay dadkii u dhawaa u sheegay inuu nebi noqday, kadibna si aan kala had lahayn ayay u soo dhaweeyeen oo u adeeceen. waxaase kacdoon weyn kala hor yimi wadaadadii waaweynaa ee Yuhuudda oo waxa ay saareen maxkamad iyaga gaar u ah, taas oo ku xukuntay in la khaarijiyo masar suurtagelin oo waxa aan u ogolaanay nidaamkii guud ee waqtiga jiray. Sabataay waxa uu ka firdhaday magaaladiisii uu ku dhashay, waxana uu yimi Istanbul oo ahayd caasimadii dawladda Cusmaaniyiinta. xaaladii ayaa ku adkaatay oo waxa uu dib ugu noqday magaaladii uu ku dhashay. haddana waa uu ka soo safray oo waxa uu yimi Istanbul, kamase uu nagaan oo Asmirtii ayuu dib ugu noqday sanadkii 1659. waxaana ay talo la noqotay in uu is ururiyo oo guriga aabihii iska joogo, iskana ilaaliyo wax kasta oo dadka ku soo jeedinaya, kamase tanaasulin inuu isku diyaariyo noqoshada masiixa la sugayo. bar uu safar ku tagay Sabataay magaalada Saloniik ayaa waxa uu la kulmay iyada oo wadaadadii magaalada u waaweynaa casuumaad loo sameeyay, isagana waxa lagu daray martiqaadkii. waxa uu casuumaadii yimi isagoo sita kitaabkii Tawraadka ahaa, halkaasna waxa uu ka sheegay in uu guursaday Tawraadii. markiiba way kaceen oo way cadhoodeen wadaadadii, intay 40 jeedal ah ka jareen ayay magaaladii dibadda uga saareen. nagaan Sabataay oo sanadkii 1663 ayuu Qudus u safray. uu ka tegay oo Masar ayuu aaday, haddana dib ayuu Qudus ugu soo laabtay. labadaas magaalana kama uusan sheegin damiciisii, isagoo ka cabsi qaba falcelinta dadka. markiise uu qasamarayay ayay ku kulmeen oo isku barteen Abraham Nadxan nin la yiraahdo, waxaana halkaas Sabataay uga muuqatay jaanis weyn oo ninkii ayuu warkii u dooxay oo u sheegay in uu nebi yahay. Abraham hanfada ayuu noqday oo hore ayuu warkii ka qaatay, waxaana uu bilaabay in uu soo tashkiiliyo dadkii u dhawaa uuna baahiyo nebinimada Sabataay, isagoo u noqday gacan yare muhiim u ah qorshaha nebinimada.
waxa kale oo dhacday arrin Sabataay aad u anfacday maadaama oo ay shacabka yuhuuddu dhibanaayeen waxa ay sugayeen sanadka 1666 iyagoo oo rajeynaya inuu badbaadiyahoodii soo baxayo qof kasta oo yuhuudi ahi bishaaray u ahayd haddaba gabadh dhalinyaro ah oo aad u qurux badnayd qudheeduna yuhuudiyad ahayd oo Poland ku noolayd ayaa kolkii ay warka Sabataay iyo nebinimadiisa maqashay waxa ay ku warantay in ay ku riyootay nuur samada ka soo baxay waxaana ay sheegtay riyadaas in ay ku aragtay iyadoo noqotay xaaska nuurkaas dabcan riyadii kolkiiba sidii ay rabtay ayaa loo turjumay oo waxa loo micneeyay nuurkaasi inuu yahay masiixa la sugayo iyaduna ay noqon doonto marwada masiixa yuhuuddu waa duul dawaqsane kolkiiba warkii gabadha ayaa baahay oo la isugu bushaareeyay caalamka yuhuudana dhex mushaaxay iyadiina turtaba iyadoo la gaadhin sanadkii la sugayay ayay noqotay marwo caan ah oo la ixtiraamo dadkiina si dhammaystiran ayay riyadii u aamineen una rumaysteen Sabataay qudhiisu markii uu warkaasi soo gaadhay ayuu isla markiisii been weyn rakibay waxa uu sheegay isna inuu ku riyooday Saara ee ahayd yuhuudiyadii Poland joogtay inuu guursaday mar kale ayay yuhuudii mucjiso weyn u arkeen waase laba munaafiq oo mid kasta dhankiisa isleeyahay jaaniska ka faa'iideyso kadibna gabadhii ayuu u yeedhay oo waxa ay isku aroosteen Qaahira arrintanina dacaayad wanaagsan ayay u noqotay oo iyada oo aan sanadkii la sugayay la gaadhin ayay dad badan isu rumeeyeen Sabataay dadkii hore ugu qanacsanaa riyadii gabadhuna waxaba ay rumaysteen Sabataay kadib markay arkeen guurkii oo hirgalay 31 March ee sanadkii 1665 ayuu si weyn u cilaamiyay Sabataay inuu yahay masiixii la sugayay cidii ugu horeysay ee raacdayna waxa kamid ahaa wadaadkii Qasa iyo xirtiisii laakiin wadaadadii Qudus joogay gaashaanka u daruureen waxana ay uga cawdeen xaakimkii Qudus dood dheer oo ay wada galeen Sabataay iyo xaakimkiina waxa uu Sabataay ku guuleystay inuu ku qanciyo xaakimkii inuu yahay masiix yuhuudi meel kasta oo ay joogaan farxad iyo reereen ayaa saaqday awal hore way baqan jireen laakiin waxaba ay bilaabeen in ay kristaanka u faanaan uguna hanjabaan maalin dhow marka ay qabsadaan dunida in ay ka argoosan doonaan Poland oo kale yuhuudi ku noolayd inta ay sawirkiisii soo qaadeen ayay wadooyinka xidhan oo ku dabaaldegi jireen waxaana ay tani kaga cadhaysiisay kristaankii halkaas ku noolaa kadibna boqorkii wadankaas ayaa ka mamnuucay waxa kale oo la sheegay in ay yuhuudi shaqadoodii xoolahoodii iyo guryahoodiiba ka tageen iyaga oo ku doodaya inuu masiixu daruur ku qaadi doono oo uu Falastiin geyn doono Iiraan oo kale beerihii ay fali jireen faraha ayay ka qaadeen oo waxa ay isku diyaariyeen inuu masiixu kaxaynayo Falastiinna uu geynayo Turkiga qudhiisana yuhuudi ku noolayd habeenkii ayay soo bixi jireen iyaga oo sita shumacyo ifaya kuna heesaya magaca Sabataay wadamada Yurub qudhooda magaalooyin dhan ayay fasax yuhuudu ahaan jirtay oo aanay shaqo tagi jirin maalinta ay timaado warqad ka socota Sabataay xataa yuhuudi Ingiriiska joogtay qudhoodu aad bay u soo diyaar garoobeen oo heegan waxa ay u ahaayeen in ay u soo guuraan halka uu masiixu joogo Sabataay waxa uu u baneeyay waxyaabo xaraan ka ah waxaana uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee ugu bushaareeyay in ay dawlad Falastiin ka dhisanayaan sidoo kalena waxa uu ku amray in ay tagaan qabriga hooyadii oo ku cibaadaystaan xoolana ay ku qalaan isagoo ku dhiirigeliyay fadliga laga helayaa inuu la mid yahay ka ay ka helayaan marka ay Qudus ku noqdaan wax la sugaba waxa yimid sanadkii 1666 Sabataay bishii September ee sanadkaas ayuu dib ugu soo noqday magaaladii uu ku dhashay ee Asmir sidoo kalena isla sanadkaas 1666 Maxamed bin Cabdillaahi nin la oran jiray oo Mosul meel u dhow joogay ayaa isaguna ku dhawaaqay inuu yahay mahdigii ay muslimiintu sugayeen Sabataay hore waxa uu Asmir uga firdhaday wadaado laf dhuun gashay ku noqday laakiin markan warkiisii iyo nabinimadiisuba way ka soo horeysay oo yuhuudda dhexdoodii uu ka soo shaabaxay wadaadadiina geed ayuu iskaga tiiriyay waxa uu helay taageerayaal jacaylkiisa la dawaqsan waxa uu saldhigtay magaaladiisii waxa bilaabantay in ay meel kasta uga yimaadaan wafti nabinimadiisa u socda ama rumaynaya magaaladii waxa ay noqotay tula circiraysa yuhuud waxana ay si joogto ah u sameyn jireen cibaadooyinkii yuhuudda masiixa waxa ay ka rumaysan yihiin yuhuuddu inuu yahay nabi haddana boqor ah taash weyn ayuu toshay waxa uu isku dubariday taageerayaashiisii dadkii soo booqanayay ayuu wacad iyo axdiyo la galay waxa uu ballamiyay maalinta uu arrinkiisu jihaadka gaadho in ay taageeraan aad ayuu u jeclaa una soo dhaweyn jiray dumarka booqanaya waxa uu caalamkii u qaybiyay 38 goobood goob kastana boqor khaas ah
oo hoos imanaya xukunkiisa ayuu u magacaabay waxaana uu waraaqaha iyo fariimahiisa gaarkaa ku shaambadan jiray Sabataay inanka keliya ee uu Ilaahay dhalay boqorada uu magacaabayna walaaladii ayaa ka mid ahaa sidoo kalena xaaskiisii Saara waxa uu iyadana u magacaabay inay noqoto boqorada Falastiin ka talin doonta waxaana uu aaminsanaa sidii Sulaymaan oo kale in uu adduunka oo dhan ka wada talin doono oo uu ka xukumi doono Qudus